السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوadayaasha qiimaha badan leh haddii aad ku cusub tahay channelka Rashid Safari subscribe ta hanagala baqay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada daawadayaal qaybtii afraad ee taxanihii taariikhda xabiibkeena Muhammad alayhi salatu wasalaam. qaybtii hore waxa ay noogu joogtay hordhaca dhalashada nabiga alayhi salatu wasalaam waxaana ay noo mareysay markii korintii nabiga alayhi salatu wasalaam iyo kafaalaqaadkiisii uu la wareegay adeerkii Abu Talib iyo sidii uu la dhaqmayay safarkii ganacsi ee Shaam iyo qisadii Zuufigii Bahira. nabiga alayhi salatu wasalaam adeerkii Abu Talib waxa uu doonay inuu u baxo ganacsigii Shaam ee safarkii Quraysh. nabiga alayhi salatu wasalaam xilliga da'diisu waxay ahayd 12 jir waxaana la yiraahdaa waxa uu dheereed 2 bilood iyo 10 habeen. nabiga alayhi salatu wasalaam waxa uu ku codsaday inuu raaco adeerkii waana uu ka yeelay. markii ay Basra soo gaareen halka waxa ku sugnaa nin Suufi ah oo aqoon u lahaa kutubtii Injiil iyo Tawraad oo la oran jiray Bahira. markii safarkii degay ayuu ku soo dhaqaaqay Bahira waana uu marti qaaday inta horteedna ma aanu ahayn mid sidan oo kale u sameeyo safarada soo mara taasoo ka dareemay nabiga alayhi salatu wasalaam calaamado aan hortood cidna ku arag. Bahira ayaa yiri isagoo gacanta nabiga alayhi salatu wasalaam soo qabanaya kani waa nabiga alayhi salatu wasalaam waa sayidkii dunida oo dhan kan rabbi waxa uu soo saaray dunida naxariis. Abu Talib ayaa ku yiri oo adigu sideed ku ogaatay waxa uu yiri idinku markii aad soo gaadheen Aqaba geed ma jirin ama dhagax haddii uu jirayna waa ay sujuudeen umana sujuudaan nabiyada mooye. sidoo kale waxaan ku gartay calaamada sheegaysa inuu yahay nabiga ugu dambeeya ee kaga taal labada garab dhexdooda ee sida tufaaxa u eeg. sidoo kale waxaan ku sii ogaanay inuu soo baxayo kutubtayada. intaa kadib Abu Talib waxa uu ku yiri heli wiilkan yar isagoo kala cabsoonaya inay waxyeelaan yahuudu hadday aqoonsadaan calaamadahan. dagaalkii Fijaar markii nabiga alayhi salatu wasalaam gaaray da'da 15 jir sida ku taala kitaabka Rahiiq al-Maktuum ama uu jiray da'da 20 jir sida ku taala kitaabka Rawdatul Anwar waxa ka dhacday suuqa cukaada dagaal ka dhex dhacay qabiilada Quraysh ee Kinaana oo dhinac ah iyo qabiilada Qays Caylaan oo dhinac kale ah. dabadeed dagaalkii wuu kululaaday waxaana labada dhinacba ka dhintay tiro dad ah. kadib waxay ku heshiiyeen in la tiro koobo labada qaybood dadkii ka dhintay qoladii dhimashadoodu badatana in la siiyo magdhowga dheeraadka ah. dagaalkina waa ay joojiyeen waxaana ay baabiyeen wixii ka dhex dhacay ee cadaawad iyo xumaan ahayd. nabiga alayhi salatu wasalaam dagaalkaas waa uu ka qayb qaatay waxaana uu leebka u diyaarinayay adeeradii. dagaalka waxa lagu magacaabay dagaalkii Fijaar sababta lagu magacaabayna waxay ahayd waxay jabiyeen xurmadii Makka iyo bishii xurmada lahayd. dagaalada Fijaar afar ay ahaayeen saddexda hore muran iyo iskhilaaf mooyee ma dhicin wax gacan ka hadal ah balse kan afraad ee nabiga alayhi salatu wasalaam ka qayb qaatay ayaa gacanta la isugu tagay oo dil la iska dilay. isbahaysigii Fuduul bishii Dulqacda kadib dagaalkii Fijaar waxa gabagabo noqday heshiiskii Fuduul kaasoo u dhaxeeyay 5 jufo oo kamid ah qabiilka Quraysh kuwaasoo kala ah Banu Haashim, Banu Mudalib, Banu Asad, Banu Zuhra, Banu Taym. heshiiskan sababtiisa waxa ahayd markii nin reer Zubaydi ah uu la yimid badeecad Makka oo dabadeed ka iibiyay Caas ibn Wa'il al-Zahmi kadib uu diiday inuu siiyo lacagtii uu kaga iibsaday alaabta isagoo oo xoog ku haysanaya. ninkii la dhacay waxa uu dacwaday 5 jufo oo ay kamid ahaayeen reer Bani Cabdidaar, reer Bani Makhzum, reer Bani Jimhi, reer Bani Zahmi iyo reer Bani Cadiyi. reerihii uu dacwaday waa ay ka aamuseen dhammaantood oo waxba uma aanay qaban. ninkii la dhacay waxa uu fuulay buur la yiraahdo Abi Qubays waxaana uu dhowr sadar oo gabay ah ku tibaaxay dulmiga loo geystay isagoo oo ku qaylinaya in la caawiyo oo xaqiisa loo soo celiyo. arrinta ku dhacday ninka waxa uu istaagay Zubayr ibn Abdul Muttalib waxa isugu keenay dhammaan jufooyinkii shanta ahaa ee aynu soo sheegnay gurigii Cabdullaahi ibn Judcaan oo ahaa madaxii reer Bani Taym. isku imaanshahoodii kadib waxa isku afgarteen oo ay ku heshiiyeen in aanay u ogolaan qof la dulmiyo ama ha ahaato reer Makka ama meel kale oo ka baxsan inay caawiyaan ilaa ay u soo celiyaan wixii laga dhacay. go'aankii ay isla qaateen waxay ku fuliyeen dhicii uu geystay Caas ibn Wa'il iyaga oo ka soo celiyay hantidii uu ka qaaday ninkii reer Zubaydi oo ay dabadeedna u celiyeen. nabiga alayhi salatu wasalaam waxa uu ku ahaa goobjoog heshiiska ka dhacay halka isagoo la socday adeeradii waxaana uu yiri nabiga alayhi salatu wasalaam markii rasuulka Ilaahay ka dhigay kadib waxa aan goobjoog ka ahaa guriga Cabdullaahi ibn Judcaan waxaan ku dhaaranayaa kamaan jeclaadeen haddii aan lahaan lahaa geela kiisa cascas haddii la igu yeero islaamka dhexdiisa heshiiskaas oo kale waan ka soo qayb gali lahaa.